asku cadeeyay inay ummadu ahaayeen kaanuu cala alhudaa jamiican faاkhtalafuu fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wamundireen fakana awalu nabiyin bucitha nuuxan calayhi salaam. haddana waxaanu ka hadlaynaa qaabkii ay asnaamta iyo cibaadada ay asnaamta ay caabudayaan wixii sababta ugu noqday qowmu nuux iyo qaabkii ugu faafsaneed. qowmu nuux waxay ahaayeen qolo asnaam caabuda qaybtii ugu horeyday, dadkuna ka hor waxay ku sugnaayeen tawxiid iyo iimaan, maba la oqoonin asnaam iyo qoryo la qoro. waxaana arrintaa caddaynaya qowmu nuux asnaam bay caabudi jireen iyo qoryo ay qorteen. ilaahay baana qur-aanka ku caddeeyey asnaamtay caabudi jireenoo aayadaha noo imaanaya ayaa caddaynaya oy dhihi doonaan wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa wa nasran. asnaamtoodu waa noo imaan doontaa. waxayna ahaayeen asnaamtaani magacyo oo dad wanaagsan u sugan baa la yidhi, ama malaa'ig muqarabiina magacyay u ahaayeen. qowmu nuux baa waxay dooneen inay dadkaas wanaagsan acmaashooda xusuustaan, markaasay ka sameeyeen tamaasiil iyo muuqaallo oo macnaha sawirkoodii ah, ayagoo markaa ku andacoonaya inaanan halmaamin baan rabnaa oo aan ku dayanno, saas baan uga jeednaa bay dhahayeen. muddo markii la joogay ayuu shaydaankii u suureeyey inay macnaha inayba iyagaanba inayba caabudaan masawirada inay caabudaan buu u suureeyey. waxaa imaamu albukhaari saxiixu albukhaari iyo saxiixu muslim ba ay soo saareen, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ummu salama iyo ummu xabiiba markii ay arkeen kaniisadii oo ardul xabasha ku sugneed oo ay u sheegeen sida loo qurxiyey iyo tasaawiirta ku dhex sugan, ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ulaa'ika kaanuu idaa maata fiihim arajulu saalix. dadka nuuca ah haddii qof fiican uu ka geeriyoodo banow calaa qabrihi masjidan uma sawaruu fiihi tilka suura. ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi waa makhluuqa kuwa ugu shar badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu kaloo imaamu albukhaari cabdullahi ibnu cabbaas ka wariyey cinda tafsiiri qowlillahi wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan. markuu ka hadlaya cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi haadihi asmaa'u rijaalin saalixiina min qowmi nuux. waa niman macnaha saalixiinahoo qowmu nuux ka mid a ay magacyo u taha buu yidhi. falamaa halakuu markay halaagsameen ayuu awxa shaydaanu ilaa qowmihim. wuxuu shaydaankii u sheegay qoomkoodii an insibuu ilaa majaalisihim, waxaad ka oogtaan meelihii ay fadhiisan jireen allatii kaanuu yajlisuuna fiiha ansaaban, sanamyo ka ooga, wasamuuhaa biasmaa'ihim, ku magacaaba qoraalladaa iyo muuqaaladaa iyo sawiradaas magacoodii u bixiya. fa facaluu way sameeyeen falam tucbad xataa idaa halaka markay halaagsameen waxa weeye dadkii sidaan samay jiray oo cilmigii iyo wixii aqoontii ay baaba'day ayaa markaa kabacdi masawiradii la caabuday oo nimanka magacyadooda awal loo yeelo weeyaan. cabdullahi ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi saxaabigaani wasaarat haadihi alawsaanu alatii kaanat fii qowmi nuux fi lcarabi bacdu. asnaamtaana kabacdi carabtiibaa sii isticmaali jireen oo waxa weeye carabtiibaa sidaa usii isticmaali jireen. sidaa daraaddeed bay shareecadu waxay ku timid inay tasaawiirta oo midda qoraalka ah inay aad uga digayso oo shay ruuxla la sawiro oo tamsiilkiisa la sameeyo ayan kaana alqarabu minha. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiis saxiixu albukhaari ku cad ou caddeeyey ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama. qiyaamada kuwa ugu cadaabta xaggeeda ugu daran ilaahay agtiisa almusawiruuna waa kuwa tasaawiirta gacmahooda ku sawira. yuqaalu lahum waxaa loo odhan doonaa dadka gacmahooda wax ku sawira uxyuu maa khalaqtum, waxaad suuraydeen oo aad muuqaalka u samaydeen naf soo geliya. ilaa nafta ay ka soo gelsaanna waa la cadaabahaya. waxaa kaloo soo aroortay malaa'igtu sooma galaan. ina almalaa'ikatu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam laa tadkhuluu baytan fiihi kalbun, guriga ay ou ku jiro malaa'igtu sooma gasho. walaa suuratun, tasaawiirtu guriga ay taallana malaa'igtu sooma gasho. walaa tamaasiilu, guriga tamaasiil iyo waxyaabo oo markaa waxa weeye asnaam iyo balaayo la dhigay guriga sooma gelaysa weeyaan. guriga noocaasa malaa'igtu sooma gelayso nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa malaa'ikatu raxma. waxaa kaloo nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi man sawara suuratan qofkii taswiir suureeya cadabahu allahu biha yowma alqiyaama. sababteed baa qiyaamada loo cadaabayaa xataa yanfuqa fiiha aruuxa walaysa binaafikin buu yidhi,
ilaa naf ou ka soo geliyo nafna ma gelin karo rawaahu albukhaari waxaanu haddana qaadanaynaa nabi nuux qoomkiisii markay beeniyeen siduu u sabray oo u dulqaatay nabiyullaahi nuux calayhi salaam qoomkiisii aad bay u dhibaateeyeen waa dhibaato iyo dil aad u fara badan ayay u geysteen muddo aad u dheer ayuu dacwada ugu yeerayey wax kasta oo dhibaata oo loo geystana wuu ku sabraayey nabiyullaahi nuux waxaan haddana qaadanaynaa insha allah sida loo tuhmaystay tuhmooyinka ay nabi nuux ku sameeyeen waxay nabi nuux qoomkiisa ku tuhmaysteen inuu yahay nin caqli yar oo lunsan qur-aankana taa looga hadlo ilaahay wuxuu yidhi markay qoomkiisa laga hadlaayey waxay dhaheen qaala almala'u min qowmihi nabi nuux qoomkiisa qaybtii ugu jumhuurtooda ahayd innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin bay dhaheen baadi cad baan kugu arkaynaa markaasuu yidhi qaala yaa qawmi laysa bii dalaala war aniga baadi iguma sugna walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin anigu rasuul baan ah oo rabbulcaalamiinka xaggiisa ka ahaaday waxay kaloo ku tuhmayseen nin waalan inuu yahay taa markii laga hadlaya ilaahay wuxuu yidhi kadabat qablahum qawmu nuuxin fakadabuu cabdanaa waqaaluu majnuunun bay dhaheen waa majnuun bay dhaheen feri waa majnuun bay dhaheen nabi nuux waxay ku tilmaameen waa majnuun waa beeniyeen wa qaaluu majnuun bay dhaheen waxay kaloo ku tuhmayseen nin dood badan oo been abuurad badan inuu yahay waxay dhaheen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agsarta jidaalanaa fa'tinaa bima tucidunaa in kunta min asaadiqiin waxay kaloo qoomkiisa ugu dhaarteen dhagax inay la dhacayaan nabi nuux qaaluu lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin bay dhaheen waxay kaloo ku samay jireen jees baa la yidhi waa ku jeesi jireen intaas oo dhan nabigeenna waa lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nabiga waxay ku dhihi jireen gaaladu waad waalan tahay waxaad tahay sixiroole qur-aankaad wadaaho waa sixir dacaayadan oo dhan sidaa dabeecaddooda weeye hadde nabiyullaahi nuux qoomkiisa dacwada ugu yeedhay marka sidaas bay ahaad waxaa la yidhi nabi nuux qoomkii uu dacwada ugu yeedhayey waa qoom aan dhegaha xaqa ka qaadanayn qalbigoodan aan waxaba gelayn wax lagu kalena aan la arkin bay ahayd 950 sano habeen iyo maalin qolo oo nabiga ilaahay nabiyullaahi nuux daba taagnaay oo waxbana haddana macnaha laga qaadin waayey waa qolo aad waxa weeye u adayg badan aad bay u adkaayeen nabiyullaahi nuux qoomkiisa waxaa la yidhi markii uu xaqa u sheego ayaguna waxay jawaab uga dhigi jireen wanaag markuu u sameeyo oo u naxariisto garaacid iyo cay iyo aflagaado ay ugu bedeli jireen baa la yidhi asagana markii si kasta dhibaato loogu geeyo kama uusan xanaaqi jirin wuxuu odhan jiraa la yidhi allaahuma akfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun ilaahu qoomkayga iskaga dembi dhaaf waxba garan maayaane ilaahu iskaga dembi dhaaf u dembi dhaaf ayuu odhan jiray baa la yidhi waxay kaloo mufasiriintu ay macnaha ay wariyeen nabi nuux baa la yidhi qoomkiisa waxay ku samay jireen way garaaci jireen baa la yidhi way ceeji jireen ilaa uu ka mir daboolmo waxay ku duuduubi jireen baa la yidhi gogol markaas bay asagoo maro ku duuduuban iyo dhar iyo oon waxaba u jeedin say u garaacayeen markuu miirbeelo ay waddada ku tuuraan markaas bay odhan jireen baa la yidhi innahu sayamuutu bacda haada alyawm kani waa dhima doonaa maanta ka bacdi awooddiisuu ilaahay u soo celi jiray markaasuu dacwada ugu yeeri jiray baa la yidhi haddana mar labaad bay ku sameeyaan dhibaatadaas bay u geystaan sidaa ayuu ku sabri jiray baa la yidhi ilaa markii dambe qoomkiisii oo dhanba la halaago oo markii loo sheego ilaahay uu ka bariyo in la halaago ilaahay ka bariyey kabacdina qoomkiisii waa la halaagay waxaa la yidhi qowmu nuux waxay kaloo samay jireen baa la yidhi wiilashooda waxay u dardaarmi jireen inaan nabi nuux la raacin wuxuu nin kastaa ku odhan jiray carruurkiisa markuu caqli yeesho yaa bunaya yaa banii wuxuu dhihi jiray baa la yidhi ixdar haadaa laa yaqurannaka can diinika wa aalihatak kad iska ilaali ninkan yousan diintaada iyo ilaahayadaadaba keda yousan kaaga ridin iska ilaali yousan kaa reebin asnaamtaada nabi nuux markuu qoomkiisa ka quustay baa la yidhi oo inaysan wax khayr lahayn ou ogaaday ilaahayna oo u sheegay inaan kuwaan khayr dambe ka soo baxayn ayuu ilaahay ka baryey in la halaago
sida gadaal nooga imaan doonta